الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu naga aqbalo soomkii, uuna noo barakeeyo bishaan barakaysan ee ramadaanka ah, uuna ka xoreeyo qooraheenna iyo aabbayaalkeena iyo ummahaadkeena oo dhan naarta jahanamo. ilaahay inuu ka xoreeyo baan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala. daawadayaal, barnaamijkan waxaan uga hadalnaa axkaamta soomka iyo fadliga bisha barakaysan ee ramadaanka. xalaqadan oo ah tii 16aad waxaan uga hadlaynaa bisha ramadaanka oo ah fursad qaali ah iyo sida ugu habboon oo looga baahan yahay qofka muslimka inuu uga faa'iidaysto. waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu fursaddaas qaaliga ah ee aan la hubin inay u soo noqon doonto in uu ka faa'iidaysto. haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku gaarsiiyey bishii barakaysneed ee ramadaanka ahayd, waxaa loo baahan yahay ilahay inaad ku xamdidid, dabadeedna aad uga faa'iidaysatid subxaanahu wa tacaala waqtiga uu ku siiyey sida ugu habboon, maximum sida ugu badan aa uga faa'iidaysan kartid. maxaa dhacay? waxay ahayn dadkii selafka ahaa, dadkii wanaagsanaayo naga horreeyey, waxay ahayn ilaahay waxay weydiisan jireen bisha ramadaanka markay soomaan 6 bilood ilahay inuu ka aqbalo. 6 bilood oo ka dambaysana ilaahu bisha ramadaanna gaarsi ayay weydiisan jireen baa laga wariyey. dad badan oo ehelkeen ah, qaraabadeena ah, asxaabteena ah, dariskeenna ah, aan naqaan, aan isla shaqayn jirnay, ayaan furso u helin inay bishaan ramadaan ay soo gaaraan oo ilaahay u oofsaday subxaanahu wa tacaala. bisha ramadaan waa fursad qaaliya, waa suuq maaragtay tijaaro ay taallo, maaragtay ribxigeedu uu aad iyo aad u sarreeyo. maxaa yeelay waxaa ku jirta leylat اlqadr. nebigu habeenkii uu yihi khayru min 1000 shahr, 1000 habeen bay ka fadli badan tahay, waa 83 sano iyo dhowr bilood weeye. waxa uu nebigu ballan qaaday qofkii sooma oo habeenkeedana u istaaga iimaanan waxtisaaban, ilaahay inuu u dembi dhaafayo subxaanahu wa tacaala dunuubtiisii hore. marka waxaa loo baahan yahay inaan ku camirno bisha ramadaan waqtigeeda, inaan ka faa'iidaysano oo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan uga faa'iidaysano. ramadaanku waa mawsim min mawaasimi اlkhayraat, waa xilliyada khayraadka ka midka ah weeye. waa xilli la labanlaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala mudaacafatu alajr. mudaacafa macnaheed waxa weeye labanlaab. ogow acmaasha kale waxa weeye xasanadii waa la siyaadiyaa, xasano kalea lagu daraa, xasano saddexaad ba lagu daraa. ramadaanku saa maahan, mudaacafa buu ka cabiray allah subxaanahu wa tacaala. waxa weye yudaacafu lahu alajr. 100 ajr haddaa haystay 200 laga dhigay, wahaakada. marka ajarkaasna waxaa lagu gaaraa qofku inuu ilaahay subxana wa tacaala soo qaabilo, inuu ka faa'iidaysto waqtiga. nebigu sal allahu alay wasalam saxaabadiisu markii bisha ramadaan soo gasho ugu bishaarayn jiray, wuxuu ohan jirayne abwaabtii jannada ayaa la furay, abwaabtii naarta ayaa la xiray, shayaadiintii ayaa la jeebeeyey. waa bil khayr badan. qofkii laga xarimo khayrkeeda ayaa ah maaragtay qof maaragtay khayr laga xarimay. waxaa naadiya oo dhawaaqa malaa'igta ka mid ah bisha ramadaan markay soo gasho, wuxuu yidhahdaa yaa baaqiya alkhayri aqbil, ama haluma riwaayad kale, war soo qaabilo khayrka usoo degdeg oo waxyaalaha kale dib isaga dhig, waqti kale haddaa rabtid dib u dhigo. waxyaalaha lahwiga iyo laqwiga iyo waxyaalahaas waa bishii khayrka wey. wayaa baaqiya alkhayri wayaa baaqiya ashari aqsir, warkan sharka rabow gaabso oo ka joog. maaha waqti shar maaha, waa waqti khayr weeye. waa waqti lagugu kaalmeeyey waxa lagaa qabtay oo lagu jeebeeyey shaydaankii qofka ku harbin jiray waxyaalaha xun. marka intaa lagaa hayo ku dhaqso. soomaada arag maaragtay qof haddii lagu qabto kaa xoog badan, inaa inta lagu hayo aad maaragtay aad ku dadaashid inaad wax ka aarsatid. shaydaanka intuu kaa qabiran yahay, khayrka boobsii inta aad kartid boobsii. maaragtay salaada badi, dikriga badi, qiraa'at اlqur'aan badi, sadaqada badi, birulwaalideynka badi, wahaakada. waxaa loo baahay inuu qofku, culimmadu waxay sheegeen anwaac kala gedisan oo maaragtay ay nusuusta ayna tustay oo daacada ilaahay ka mida oo lagu buuxin karo ama u habboon in lagu buuxiyo bishaan barakaysan ramadaanka. waxaa ka mid a kow aliktaaru bidikri illaahi subxaanahu wa tacala. dikriga ilahay inaa badisid. dikriga ilaahay subxaana allah, alxamdu lilah, laa ilaaha ila allah, laa xawla walaa quwata ila billah. kul hadi kunuus min kunuus اljanna. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu اlmulku walahu alxamdu, huwa calaa kuli shayin qadiir. saliga nebiga allahuma salli calaa maxamed, wahaakada. inaa badisid waxyaalaha maaragtay in maaragtay qof ku dadaalo loo baahan yahay ee khayrka ah ayay ka mid tahay. dikriga nebiguna waatuu yihi xadiid kalimataani khafiifataani calى lisaani thaqiilataani fi اlmiisaan, subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. laba kelimo waxaa jira
iska khafiifo carabka aan dhib ku ahayn subxaan allah inaad dhahdid laakiin miisaanka aakhiro marka acmaasha la miisaamayo waxa weeye way ku cuslaynaysaa maaragtay maana labadaa kelimo uu nebigu u sheegay waxyaalaha kale oo ku habboon qofku inuu bisha ramadaan uga faa'iidaysto daawadayaal waxaa ka mid ah inuu qofku wuxuu awoodo uu bixiyo sadaqa ah bishan waa shahru aljuud wasadaqa walbarakaat weeye maarata waa bishii deeqsinimada wey nebigu wuxuu uu ahaa deeqsi buu ahaa weligiis deeqsi buu ahaa laakiin bisha ramadaan markii la gaaro sidii dabayl oo kale u ahaa waxa uu hayo o dhan waa faraqi jiray wixii ilaahay uu soo geliyaba horuu ka dhiibi jiray maaragtay marka bishaan in maaragtay wax la sadaqaysto dadka masaakiinta loo roonaado maaragtay dadka la afuriyo dadkii maaragtay ehelka iyo qaraabada ahaa ee dadka banaanada jirow inaad wax u dirtaan dadkii dad wax u diri jiray ay wax ugu daraan ajarka ayaa badan hadduu qofku ilaahay maalkiisa ay sadaqadii waajibka ay ku waajibtay waxaad la eegataa bisha ramadaan inaad bixiso dadka wanaagsan maalka bil kastaa bixin kartaa sadaqadiisa laakiin si lagugu labanlaabo ajarka waxaad la eegataa bisha maaragtay bisha barakaysan ee ramadaanka ah la eego maaragtay in aad bixisid sadaqadii waxyaalaha wanaagsan in lagu camiro bisha ramadaan waxaa ka mid a ducaa ilahay in la baryo subxaanaه wa tacaala waa fursad min furasi waqtiyada ilaahay uu ducada u ajiibo ka mid ah maaragtay dikriga iyo ducada iyadoo mar walba loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu ducaysto oo ilaahay uu baryo oo gacmaha uu kor u taago oo ilaahay uu yihi udcuunii astajib lakum wari barya waa idin ajiibayaaye ilaahay uu yihi maaragtay aayad kalena ku yihi fainii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waan idiin dhowahay markii qofkii ibaryahaya waan u dhowahay ilahay uu yihi soomku isagoo si gooni ah ayaa la rabaa inuu qofku u ducaysto lanna waa fii awqaati alijaaba baa ku jirta awqaad ilaahay uu ducada ajiibo ayaa ku jira maaragtay markuu qofku afuro waxaa loola baahanya inuu ku ducaysto maaragta ducadii nebi ka sugnaatay ee ahayd nebigu uu dhihi jiray dahaba tama'u waxaa tegey oonkii wabtallat alcuruuqu xiidadii ayaa qoyey wahabata alajru in shaa allahu tacaala ajarkii ayaa sugnaaday inuu ku ducaysto ayaa loo baahan yahay ilaahay raxmaddiisa inuu weydiisto oo ilaahay aada u baryo leanna waa waqtiyada aan ducada aan la soo celin bay ka mid tahay waqtiyada cinda aliftaar aan waqtiyada ducada aan la soo celin sida nebiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay axaadiid saxiixa waa waqtiyada khaaska khaasatan fii waqti aliftaar inuu qofku uu baryo ayaa loo baahan yahay xadiidka cabdullahi bni cumar ayaa saa ahaa iyo keyrkiis ay nebi ka wariyeen saxaabada nebi ka wariyeen in waqtiga iftaarka cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa caruurtiisa o dhan buu soo jamcin jiray markaasuu maaragtay wuxuu dhihi jiray alla aan wada barina ayuu dhihi jiray maaragtay marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku ilaahay uu baryo xadiid anas laga wariyey ayaa jira iyo ibnu cabaas oo ahaa allahuma laka sumtu wacalىa risqika afdartu subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma taqabal mina inaka anta samiic caliim qofka haddii ku dhacaysto dhima lakin xadiidkaa sanadkiisu waa daciif laakiin waa duco hadduu qof ku ducaysto xadiidkii hore ayaa ka saxiixsan ee ahaa nebigu yihi dahaba tama'u wabtallat alcuruuqu wahabata alajru in shaa allahu tacaala xadiidka abu daa'uud iyo daar qudni iyaa weriye sanadkiisuna waa xasan wey marka ilaahay in la baryo oo ilaahay subxaana wa tacaala aada loo baryo waa waxyaalaha wanaagsan in waqtiga lagu camiro maaragtay loo baahan yahay maaragtay marka waxaanu nidhi bishan ramadaan waa bil maaragtay barakaysan waa bil maaragtay fursad ah waa fursad aanu ogeyn inay nagu soo noqon doonto mar labaad in uu qofku ka faa'iidaysto waqtigiisa uu kontaroolo waqtigiisa uu time table u degsado waqtigiisa uu ka faa'iidaysto nebigu wuxuu yihi sal lla alay slm nicmataani maqbuun kathiiru min annaas nicmataani laba nicmo maqbuunun fiihima kathiiru min annaas laba nicmo maaragtay dadka kama qaala sal allahu alay wasalam dadka badankooda kama faa'idaystaan waa lagu kadiyaa asixatu walfiraaq sixada iyo firaaqa hays dikriga ilahay ku camir maaragtay dacwa ila llahi ku camir alamru bilmacruuf wanahy can munkar ku camir ilahay oo beridid ku camir qira'at lqur'aan ku camir maaragtay hadduu nasiixa watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri ku camir waxaasoo dhan baa naloo kaga baahan yahay walaalayaal ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanaه wa tacaala inuu bisha barakaysan ee ramadaanka uu noo sahlo soonkeeda ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanaه wa tacaala inuu noo dhammaystiro annagoo caafimaad qabna ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanaه wa tacaala inuu naga aqbalo inahu huwa الsamiicu الcaliim ilahay waxaan ka baryaynaa dunuubteena dhammaanteed inuu dhaafo inaga iyo waalidiinteen iyo muslimiinta oo dhan allahuma acis الإسlaama wاlmuslimiin وأdil shirka wاlmushrikiin allahuma اغfir lilmuؤminiina wاlmuؤminaat
الأحياء منهم الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.